waa xilli jawigu degan yahay muqdishona cadceeddu u soo baxayso halkani waa xeebta liido orod iyo ruuclayn badan ayay sameeyaan dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho waxay subax walba u soo kalahaan sida jimicsi iyo jirdhis u samayn lahaayeen muhiimadda jimicsiga joogtada ah waxay leedahay saameyn togan oo jirka ah mustaqbalka fog iyo muddada gaaban maadaama ay ka caawinayso ka hortagga cudurro dhowr ah sida cudurka macaanka iyo cudurro badan waa kooxad dumar ah jimicsi inay sameeyaan ayay halkan u yimaadaan waa mid ku cusub muqdisho inay gabdhuhu jimicsi sameeyaan weliba ayagoo aadaya meel xeeb ah wiilasha ayaa berigii hore samayn jiray balse hadda dumarkii ayaa ku soo badanaya tani waa aamina oo ka mid ah gabdhaha xeebta u soo jimicsi taga taasi oo muujisay muhiimadda uu u leeyahay haweenka jimicsiga iyadoo sheegtay in miisaanka uu xakameynayo anagoo ah maamooyin isbahaystay oo imaado badaliido jiimkana uu nagu fiican yahay orodka waxaan ka soo orodnaa degmada shubis orod rucleenaan ku imaanaa xeebta liido markaa imaanada jimicsiga inta ku suubinaa dhowr naagoodaan nahay oo maamooyin ah marka waxaan u sheegaa maamooyinka guriga jiifo inay socdaan socodka waa caafimaad badiyaan socodka waa caafimaad dabcan jiifka waxaan leeyahay cudur sokor kolestarool dhiigkar cudur oo dhan aan ku imaanayo waxaan ku dhiirigelin lahaa inay imaadaan xeebta liido ay socod ku imaadaan amba rucleen intay awoodaan socodna ay ku noqdaan maamooyin waayeelaana la socdo 80 jiraana la socdo 90 jiraana la socdo maasha Allah waa dhaqannahay dad badanaa nahay usaama cabdi salaamaan iyo fawsi ismaaciil kaskay waa laba wiil oo dhalinyaro ah waxay jimicsi ku sameeyaan xeebta waxay aaminsan yihiin in jimicsiga aroortii ay tahay mid ka qayb qaadan kara dhismaha faayaqabka caafimaadka jirka markaan bilaabay waxaan ahaa 90 kiilo haddana waxaan lahaa 69 kiilo faqri aad iyo aad u weyn u dhaxeeyo almitadan waa almita aan alleelahe aan qiyaasi karin bishii koogeedaan bilaabay sanadkan 2020 dhexdeed waxyaabo badan ku jiraan sida waxaad ka faa'iideysaa dadka horta uma ekaanaysid dadka qaar uma ekaanaysid waxaad ka helaysaa fircooni aad u fiican haddii jeer isbitaalku waa la dagaalaysaa iyo doktorka iyo waxaas waa la dagaalaysaa jimicsi aad u weyn ayaan ka helnaa walaalkeena ama marna macallinkeyga qiimaha iyo qaayaa leh doctor Abbas khayr Allah siiyo waxaan alminteena subaxdii 11 saac bar iyadaas soo galnaa waxaanu soo galnaa inaan jismigeena dhisano oo yaani maxay dhahan ii sheeg dadka sokorta qabaan ee ka badbaadaan ku caafimaad helaan iyo dadka ii sheeg maxay dhahan oo kii qabaan maxay dhahan dhiig karka iyo kolestaroolka dadkaas oo kale caafimaad u yahay maasha Allah teeda kale waxa waa jism kaliya uu soo galnaa inaan oo macnaa jismiga ku dhisano waxa dadka faatiska jirkooda ku jira xataa waxa waa caafimaad u yahay marka laga yimaado jimicsiga waxaad u baahan tahay qof aqoon leh oo ku haga markaad ku cusub tahay Abbas Maxamuud Abu waa macallin kooxdan dhalinyarada wiilasha halkan taagan wuxuu casharada xiriira jimicsiga iyo jirdhiska siiya subax kasta marka laga yimaado subaxyada khamiista wuxuu iiga sheekeeyay jimicsiga noocyadiisa iyo hababka ay u sameeyaan magacayga anoo Abbas Maxamuud Abu waxaan ka hadlayaa mowduuca meeshan aan ku hayno sida jimicsiga marka anaga meeshan waxaan soo galnaa 12 saac oo subaxdii salaad saac usoo dukana soo baxnaa meeshan imaanaa ku jimicsanaa waqtigaas aan ku sheegayna waxa waaye 5 bariyan leena anaga sabti ahad isniin talaado arbaco 5 bariyan leenahay laba bari waa kala neefsanaa meeshan sida jirka loo nafasiyo qofkii la bini'aadam waa nooga murqiya xanuunayo qof uu ku cusub yahay qofna hore u galay marka dadka isku mid maaha waa in loo kala neefiyaa labadaas bari waxaan u yeelnay qofka inuu ku nafiso murqiisa ku jimciyo saliid ku marsado adiga jaanisan siinay farqi weyn u dhaxeeyo tan jimicsi waay meel walba waa murqaha dhiiga meel kasta maskaxda indhaha dhigaha faruuraha xataa way ku jiraan laakiin jiimka waa hal meel biraad qaadee birta qaadisa oo qaadisa aqoon muulid waa qabe meel kasta iska geeyna murqiya dhinac u booda nin waxaan arkay hada gacantiisa soo qalaacatay saas u qalaacatay jiim uu qaaday saasay u qalaacatay inuu aan iimaado oo dhaho walaalo gacantii baa saa noqotay jiiman joogi saanan sameeyay marka waa dhihi waay macallin ma laha waa dhihi waay ilaa meel walba macallin leedahay faafahintaas waa gali waay laakiin
horaan ugu socday oo waxaan yeelay waxay markaas daawadiisa ay tahay aan u sheegay u sameeyay alxamdulillah ilaahay waa ku nabad yeelay waa ku caafimaadiyay laakiin jiimku waxa fiican sidiisa markii la sameeyay step uu leeyahay jaranjarta hal mal mar la fuulo tooka loo faraa 2 2 3 ay leedahay marka jiimku waxa waaye macallin uu leeyahay dadkan Soomaalida markay jiim tagaan waxay u badan yihiin in birta iska qaadaan macallin uu leeyahay macallinka la xiriiro jimicsiga ayaa ah mid faa'iido badan u leh jirka qof kasta markuu sameeyo ayuu iska dareemaa dhalinyarada ayaa baryihii ugu dambeeyay ku soo badanayay iyagoo doonaya sida ay jirkoodu dhisi lahaayeen fartuun maxamuud axmed fartuun filsan Shabeelle TV Muqdisho